waxaan ahay suldaanka guud ee beelaha Warbari inta aanan madaxweynaha wixii aan odhanayo aan odhan waxaan salaan idinka sidaa dadweynaha aad isku xisbiga iyo isku haybtaba tihiin ee degmooyinka Laaskeel Madheera Berbera Laasada Cawo Shiikh Qoyta Suuqsade iyo Gidheys Suuqsade Gidheys Qoyta Burco iyo Qabri Gorod waa degmada magaceeda aad ku hadli kartaan ee ugu xigta markaan anigu afka reerka ku hadla afka xisbiga hoggaankiisiiba u joogay waxa la yahay Masala Gorod Burco ayay 100 kilomitir koonfur ka xigtaa waxaan soo maray degmooyin fara badan sida caasimadda Gabiley Togwa Jaale Geed Ballaadh Arabsiyo iyo qaar kale noo hadhay maanta farxad bay tahay inaan allay baday maado meel kasta oo aad joogtaa waxbay ku suntan tahay ilaa ceelkii dameerabo baan garanayaa inay tahay maxay ahay toolay degmadii halkan kan garanayaa nin kastaaba wuxuu leeyahay Garbahaare inay Garbahaareedii Cabdicasiis tahayna waan garanayaa intaan marka laga yimaado hadal badan idin oran maayo dadweynaha salaam baan idinka sidaa waxaan kaloo soo maray madaxweynaha la soo maray ilaa iyo maxay ahayd tale Caynaba Qorlugud Garadag Ceelaf Weyn Yufle Ceerigaabo Fadhigaab waxay ahayn dadkaasi dad idinla dareena idinla xamaasada aad moodo inaad ku wada jirtaan WhatsApp group oo moodo inaan kala maqnayn waxaan kaloo idinku darayaa reer Allay baday salaadiintiinu maanta maaha salaadiintii hore ee geedka iyo maktuumka hadli jirtay waa salaadiin digital ah waa kuwa idinkula jira WhatsApp-ada iyo TikTok-gaba halkaad maraysaan idin kala socda farxad bay noo tahay soo bixitaankiina iyo cududiinuba taariikh badan oo aad leedihiin oo aan halkan ka sheegi karayn baa jirta laakiin maanta wuxuun baan idinkaga tegayaa haddii xisbinimo lagu codeeyana kulmiya guulaysanaya waxaan iyagana aad u salaamayaa niman culus oo halkan maraya oo ka mid yahay Cabdulaahi Maxamed Ducaale ninka la yiraahdo nin bari oo ka mid yahay Master Kore oo ka mid yahay taliyihii booliiska Master Janagale oo ayaguna heegan u ah horumarka iyo aqoonsiga Somaliland iyo nabadgelyada maanta Somaliland way tashatay markan gobolada marayo berigii hore xisbiyo badan baa loo codeyn jiray maasajkan oo soo faray wuxuu ahaa maadaama wadanku xaalad adag uu ku jiro oo quwado waaweyn ay la dagaalamayaan sida Turkiga iyo maxay ahayd toolay Masar iyo dawladaha la midka in xisbi qura loo codeeyo oo xisbiga kulmiye loo codeeyay Somaliland isla qaadatay taasina waa bushaaro